mudane madaxweyne sharaf iyo karaame noo tahay inaad waqtigaaga noo hurto isla markaana aan VOA ka aqbasho waraysigan aan marka hore ku bilaabo waxaa jira xaaladaha mandaqada ta Afrika ta adduunka iyo tugaaro Somaliland siyaasadeeda arrimaha gudaha ah aan ku horeyno siyaasadda arrimaha gudaha muddo 40 maalmood aan dhameyn baad xafiiska joogta 120 ama 100 maalmood horena qorshe ayaa yaalay ilaa imka maxaa ku qabsoon horta waa muddo yar laakiin waxyaalo badan baa qarsoomay yaa noo qabsoomay hawluhu markaad hawlgelaysa waxay u baahan tahay qorshe iyo vision kuwaas manifestadii iyo markii dadka aanu dee kaambeynka bilaabeynay baan kusoo talagalno waa jira waxay soo baahan tahay marka ay wuxuu marka hore aragti tahay qorshaha tira halkaan soo qaban marka dambe waxaad moodaa stage-kii loo rogayay fulinta stage-ka fulintu xaaladda uu ku soo beegmana daraasad gaaro labaad buu baahay dhaqaale environmentka siyaasadda ee abuurmay xaalad kala abuurmi karta aad ku tala gashaan ahayn dhibaatooyin kala iman kara marka horta wixii qorshe ahayn wax ku fulin waan dhamaynay mashaariicdii aanu ka dhiganay mudnaanta koowaadna badankooda waan wada bilownay marka xaaladdeeda bilow wanaagsan bay ku socotaa dadka qaar baa markaad magacowday golaha wasiirada dareen celinta soo celiyeen waxay noqotay in wasiirada aad magacowday qaarkood goobahaadu magacowday aanay ahayn goobahay aqoonteeda lahaayeen wasaaradda badan oo cadaaladdu ka mid tahay baa tusaale loo soo qaadanaya sidee qofku aqoontiisa iyo eedsula meel dhigtay iyo shaqada uu qabanayo waxayna tahay wasaaradaha wixii technical ama wax soo saara waxaa loo dooraa qof shaqadeeda yaqaan wixii hogaamin ama maamul ama siyaasadana waxa qaban kara qof kastoo fanka hogaaminta ama siyaasadana oo inta badan u baahan waa aragnimo aqoon oo dharasho taanad way fulin karaan cadaaladda oo kale cadaaladda waxay noo hayaan chief justice maxkamadda sare oo specialization leh iyo xeeraryaha guud oo specializationkiisa leh ama aqoonta gaar ahaaneed leh cadaaladdu waa meel maamul iyo hogaamineed marka haddaad u jeedo maad siinin garyaqaan ah waxay la tahay wasaaradda cadaaladdu maamul bay qabataa adeeg bay u qabataa maxkamadda garsoorka laakiin hawsha garsoorka aqoonta loo baahan yahay waxaa fuliya maxkamadda sare iyo xeerarinta guud marka waxay la tahay waa ku habboon ciddii loo magacaabay weli dadka qaar waxay u dhegtaagayaan magacaabista xukuumaddaada oon weli dhammaystirnayn ma laga yaaba in 100 maalmood ay dhammaadaan adigoo weli soo dhammaystirin xukuumaddeedu waa dhammaystirantay gurihii wasiiradu waa dheyi waxa kale waa shaqaale waxaa hadhay waa shaqaale shaqaalahana qofkii shaqadiisa haya dee in la bedelo ma noqonayso hadday meel banaanaato ama qof shaqada qaban waayo in baa la bedelaya hawsha lala dheeray marka ma arka xukuumadda waxaa leeyahay xukuumaddii waana dhammaystirin yaa la doonaya in la magacaabo markaas meeshu waa shaqaale waa civil servant maarayaashu waa civil servant ambassadors waa la mid marka waxay u baahan tahay in la derso oo ciddii xilka haysa cid shaqaysan weyday oo la bedelo iyo cid loo daayay male marka ra'yiga kuma raacsanay xukuumaddii ma dhammaystirmin xukuumaddii 2 maalmood gudood baan ku dhammaystiray oonu soo dinay wasaaradii oo dhan waana la ansixiyey baarlamaanka uu ka dhawaaday hawshan oo socota sunnaha xukuumadii ka horeeyay baa wuxuu ahaa in agaasimayaasha saad sheegtay waliba shaqaalihiin la magacaabo mar la wada raaciyo dadka qaar baa weli habeenkii seexday iyagoo xil haya subaxiina soo kaca iyagoo isla xilkii ma laga qaaday micnaheedu waxa weeyaan cidaanad weli wasaaradahoodii ugu tagin eena taaban ama shaqaale hoose aadaadan ama agaasimayaal hadaane sidoodaas xilka u haynaya ha dowladnimada waxana waa political post waa la doortaa madaxweynaha ku-xigeenka doorta xukuumad baa laga rabaa xukuumaddu waa wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada caalamka oo dhan agaasimayaal ambassadors generals oo awoodaha madaxweynuhu saxo waxa weeye lafdhabarta maamulka administration iyaga hawsha socodsiiya wasiirka la keeno habadalmo waa inaanu xafiiskaasi dhaqaaqin oo faylkiisu yaalla oo la shaqeeya marka kuwaasi kuma xidhna inay la wareegaan doorashooyinka haddii kale meeshu waa la saadey shaqada dowladda wala marka waxaan u aragnaa in sharcigaasi uu yahay ka sax la raacayo marka wixii xil haya agaasime maareeye